Kuwana waa shanta shirkadood ee adduunka ugu shaqaalaha badan. Website-ka companiesmarketcap.com la yiraahdo waxa uu soo dhigaa arrimo la xiriira shirkadaha waaweyn ee dunida iyo qaaradaha u kala gudbay iyo arrimo iyaga la xiriira ganacsigooda. Marka laga istaago dhanka shaqaalaha ama xuduudda shaqaale ee shirkad walba ka shaqeysa, waxa uu soo dhigay liista dheer ama boqolka shirkadood ee adduunka ugu shaqaalaha badan. Waxaana shirkadda u horeysa tahay shirkadda la yiraahdo Walmart, shirkadda la yiraahdo oo shaqaalaheedu uu gaarayo 2,100,000. shirkaddan waxaan u maleynayaa hadiiba dhowr shirkadood oo iyada la mid ah Soomaali la dhex keeni lahaa, Soomaali oo dhan inay halkaas ka shaqeyn lahayd. waa 2,100,000 oo shaqaale ah ayaa ka shaqeeya. Inta badan shirkaduhu marka ay dunida u kala gudbaan ee ay noqdaan waxa la yiraahdo multinational companies ay noqdaan, ee ay dunida iyo qaaradaha daafahooda u kala gudbaan, waxa bata shaqaalahooda 2 milyan bal adigu waa qiyaas iyo 2,100,000 oo shaqaale ah. Shirkadda la yiraahdo Amazon oo ah iyadu kaalinta labaad ku jirta dhanka shaqaalaha ama tirada shaqaale ee shirkadaasi ka shaqeeya. Shirkaddan waxaa ka shaqeeya 1,525,000 oo qof ayaa ka shaqeeya. Waana shirkadda kaalinta labaad ku jirta maadaama oo Walmart ay ka horeyso oo ay ahayd 2,100,000. iyadu waxa ay joogtaa 1,525,000. shirkadda iyadana la yiraahdo Foxconn iyaduna kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa oo waxa iyadana shirkadaasi shaqaalaheedu uu yahay 626,608 ayuu shaqaalaheedu yahay. waa tahay shirkadda ku jirta kaalinta afraad waa shirkadda la yiraahdo Accenture. shirkadaas waxa ay shaqaalaheedu yahay 750,000. iyada lafteedu 1 milyan bay wax yar u sii jirtaa. shirkadda ku jirta kaalinta shanaad waxa la yiraahdaa Volkswagen, shirkadda la yiraahdo way. shirkadaasina shaqaalaheedu waxa uu joogaa ama tiradiisu uu gaarayaa 650,951. haddaba waxaan dib kuugu celinayaa shirkadda koowaad, shanta shirkadood ee dunida ugu shaqaalaha badan. waxaa iskale labada shirkadood ee u horeeya ee kaalinta koowaad iyo kaalinta labaadna ku jiraba waa Walmart iyo Amazon. waxaa iskale Mareykan ayaa iskale. kaalinta saddexaad shirkadda ku jirtay waa Taiwan. mar kale waxaan ka soo hadlay shirkad ay Taiwan leedahay oo ahayd 10 shirkadood ee adduunka ugu hantida badnaa ka mid ahaa ayaan ka soo hadlay. marka kanna shirkadda Taiwan ay leedahay waxay ka mid tahay markaasi kuwa dunida ugu shaqaalaha badan. kaalinta afraad shirkadda ku jirta waxa iskale waa shirkadda la yiraahdo Accenture. waxa iskale Ireland ayaa iskale. kaalinta u dambeyso ah kaalinta shanaad shirkadda ku jirta waxa iskale Germany ayaa iskale.